lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha walaashayna ha u naxariisto. Rabbi subxaanahu wa tacaala ana kitaabkeeda midigta ka siiyo iyada iyo annaga iyo intii muslimanaba. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu khaatumada nagu sugo oo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uusan si xilli noo dilin oo aan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa aynu ku dhimaan khaatumo wanaagsan insha Allah. intaas markaan tacsida uga soo gudbo waxaan rabaa inaan wax yar ayadana ku daro bal horta qofka aan ka hadlayo bal inaa ila daawataan oo wax yarna ila aragtaa ma jeclaan lahaa shakhsiyan qofka ay tahay. gabadhan waa gabar agtirad ah, waxay ka mid ahayd dhalinyarada aadka waliba u firfircoon Somali React bayskoodu yahay Nairobi ayay ka mid ahayd. ilaahay ha u naxariisto. wayna la shaqayn jirtay familkaasina wax taqaana ka tirsanayd. filmaan aad u qurux badan bay soo saari jireen run ahaantii. bal wax yarna aynu ka yara daawan. dabcan waad aragteen aan u maleynayaa arrimahan oo kale wayna dhacdaa wayna soo noqotaa. marka meesha ka sixi lahaayeen way ku camirteen wayna ku qosleen. wixii dhici doona ma ogin, marka waa inay soo raacdeen. muuqaalkii xumaa wiilka laga duubay meel walba gaartay. dhibaatada internetka oo social media uu leeyahay midaan oo kala kamid ah. macnaha wixii ayadoo la hubsanaa la iska faafina qofba qof uu sii sheegareynaya. midaan oo kale tan waxay saameynaysaa ciyaalka qurbaha ku nool iyo waalidkooda sababtoo ayagoo aqoon fiican qofkii loo lahayn ayaa la caynaya la filgaadeynaya. waalidkina jab baa lagu ridaya, caruurtana sidoo kaleeto. marka arrintan way soo noqotaa wayna dhacdaa. marka video sida u dhameystirataan marka la soo raaca waa taas dhibaatada hadaa idin sheegay. waxa la isku diray wiil iyo waalidkiisa ama aabihi wiilkiisa la isku diraya. markii haday wiilka sixi lahaayeen wiilasha oo su'aalihii uu qalday uga jawaabi lahaayeen midaan oo kale ma dhici lahayn. social media wax lagu faafiyo oo kale dhibaatadan keenaysa way aabihiina wax muusan arki lahayn, wiilkiina xumaata ama codad ma gali lahayn. marka dhibaatada maxaa looga hor istaagi karaa? ha faafinin marka horeba hadaadan micnaha qofka sixi karin ama walaalkaada waxban u sheegi karin xumaatadiisa ha faafinin. wax xunna meesha social media soo gelin sababtoo ah qof walba qof uu ka sii koobiyeysanaya, qof walba qof uu sii diraya. dhibaatada way sii weynaanaysaa. marka sidoo xalka u soo afjarmo xasilooni loo helo iska dhaafa waxa xun. waad mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان إذين سلام يا مركزتا شوكتان إيسي كستو آدنا مقلسان هالكاني ومرتهاقي مدى اسمين عن أرق مركا مانتا وحان آد وقحو محي سنقط كيكوات إنان لكوانتان تاسي وحان تاسي ودريا ولا شيء منش اللهم حارستو رونا هانتي وقيري نحدين لي وقبر عن آد وذا قرانينو وقبر تشلاء رونا هانتينا waxay ku faraxsanayd inay mataqaanaa waayaheeda dunida iyo arrimaheeda iska wadato, laakiin mawdku kulama tashanayo goor uu ku yimaadana ma garan kartid. marka ilaahay waxaan uga rajeynayaa walaashay inuu dembi dhaaf iyo mataqaanaa ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo, ayadana uu dembi dhaafo insha Allah. ayada intii la geeriyootay oo uu kamid ahaa wiil dhalinyaro ah oo isaguna mataqaanaa lamid la socday sida la sheegay ama aan warka ku hayno waxay u socdeen meel la yiraahdo Naivasha meel la yiraahdo oo sawirada wax lagu galo way u socdeen. sidoo kale walaashay Munish waxay kamid ahayd waxay soo saarayeen ama ay wadeen qabanqaabadiisa filin la yiraahdo ayaan leh oo hadda Nairobi hawshiisa ka socotay oo la rabo waliba ay Netflix ay gadatay. shirkadda Netflix filin ay gadatay ayay kamid ahayd oo waliba dhawaan rab in la soo daayo. duubistiisina ay socotay bil aad loo agaasimay oo Afrika lagu dhigay buu ahaa. qayb bay ka ahayd waliba ma sha Allah waxa weey laakiin tii ilaahay kula tashamayso. goobtan aad arkaysaa waa goob ay daasan yihiin dhammaan qalabka kala duwan ee loogu talagalay in filimada lagu sameeyo. waa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii. waa goobta lagu soo gabagabeynayo filimka ayaan leh oo ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaro gaaraysa ilaa 25 dhalinyaro Soomaaliyeed ah. intaa ka gadaal sidoo kale waxaan rabaa inaan barnaamijkayga ku sii daro qofta la yiraahdo qaliladan oo ayaduna sheegtay in ay kamid ahayd asxaabta dhinaceeda joogtay habeen hore iyadoo oo waliba show ka dhigaysa magaalada Nairobi ayay waxay video ku leedahay waxay dhinacayga ayay taagnayd ayna mataqaanaa ku ciyaaraysa agtayda waan u qaadan waaye. sidoo kale waxay caddaysay oo ay sheegtay in ay fankii gabi ahaanba ay albaabada u laabtay. waa sida hadalka u dhigtay. waan ugu hambalyeynaa. waxaan leenahay ilaahay mataqaanaa xilli fiican buu kaa qabtay
waxa weeye insha allah waxa weeye wax wanaagsan baad samaysay ilaahay subxaana watacaala ay kaa qabtayna waxa weeye adigu aad caafimaad qaba gabadhaasna tusaale kaaga dhigay waxay baa ilaahay mahad u sugnaatay run ahaantiina fanku wax qiimo ah ma lahan qofku inuu iswaansado oo ka baxaan aad bay u fiican tahay habeenkii maalintii sidaan caadi u ahay habeenkii waa ka cabsi badanahay marka si kastaba ha ahaatee waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesayga ugu jiraan qofkuu doona ha ahaado qofkii fideogeygaan arkay bataatan inuu fideogeyga heesteyda uusan youtube-kiisa ku jirin meel kasta oo hadduu isticmaalo iyo haddii kaleba baliis waxaa idinka codsanaya walaashin idinka codsanaysaa inaa bataatan iga tirtirtaan heesayga oo dhan maadaama aniga aan fankii go-aankeyga ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray codsi ayaan wataa qofkii inta fideogeygaan arko oo youtube-kiisa heesteyda ee kasii isticmaalo ama sii gashto aakhiriyo adduun ma cafiniyo ilaahay baa loo toobadkeelaa ilaahay waa u toobadkeelay hees dambana leeguma oga maalin walbaba waxaan isdhahaya israaqadan ilaah baa baxsho fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay markastana aan ka baryi jiray aan dhihi jiray ilaahayo israaqad meel kaleeta iga sii maantay in aan bataatan aan fankeyga soo gabangabeeyey dambana aanan rabin inaan kusoo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay teyda ha ii rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalanay muddo badan aan dagaalameynay muddada aan dagaalameynay waxa waaye uu iga xoog badnaa jiray because wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helayo meelaha fanaannimada ah wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helayo lacagtaan u baahdo fanaan haddaan ahay oo fanka ah ku jiro ma fahanteen laakiin marka maskaxdeyda iyo ilaahay aan niyadeeda gashto israaqada ilaahay qofba meel ku siiya intaan hadduu ilaahay ugu soo siinaayay maanta niyadeeda waxaa ku jirta inuu meel kale ilaahay iga siinayo adinkaan i daawanayo hadda raydnaa u daawanayo ayaa isiinaya lacag ma fahanteen every video aa soo geliya aad daawatiin lacagaan ku helayaa fanka marka muxuu ii tarayaa nothing wuxuu ii taraya mala business yaraan samaysta ilaahay i barakeeyo waxyaaba badanaa samaysanayaa fan ma rabo qofkii heesteyda shalay markaan soo galayay waxaa ii geysatay shaydaannimo iyo caqli yaro maanta damoor aad sii weyneynaysid damoor aad sii xumeynaysid waa laga fiican yahay waxaa fiican qofku markasta uu sii weynaanaa garaadkiisa sii badanayo godkana waad usii dhawaanaysaa dad baa waxay isleeyihin dhallinyaronimada markaad weynaato ka tabadkeen yaa ku og inaad gaaraysid markaad weynaato aniga waxaa idinka baryayaa laba wax waxa waaye midda koowaad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qayr qaban fanka inuu isiiyo oo aanad dib dambe ugu soo laaban shaydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno fanaannimada kaliya shaydaan maa waxyaaba badanaa shaydaannimada shaydaanku waa aragteen qofaan dambi gelin ma jiro hadda ka bacdina dambi ma gelaayo ma dhahaayo waan gelayaa bilaaadana ah laakiin mid ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba allah iiga dhigo qofku inuu iswaansado oo ka baxaan aad bay u fiican tahay marka waxaan ugu hambalyeynaa walaasheed kuna soo dhaweynaynaa in ay go-aanka ay qaadatay ee geesinimada leh in ay ka dhabaysaan ilaahay ka rajaynaynaa annaguna waa ugu sacabtumaynaa insha allah bilkariim ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu mataqaanaa ayadana qalbigeeda u dejiyo oo sida ay maanta u garatayba in ilaahay ugu wado oo ay qalbigeeda ilaa ay ka goyso inay mar dambe ay fanka kasi mid ahaato waayo wax walba waa ku camal qaadanaysaa wax walba adduunka ka dhacaya waa inaad ku camal qaadataa wax walbaad arkaysid waa inaad tusaale ka qaadataa waa inaad wax kala mataqaanaa wixii kastoo agtaada ka dhacaya waa inay qiimo kuu leeyihin marka walaasheen qaaliladan waxaa leenahay waa kugu hambalyeynaynaa go-aanka geesinimada le aad qaadatay awal la gaalmaadan ahayn ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba allah iiga dhigo haddana waxa weeye kolle dee fan baad ku jirtay fankuna wax qiimo ma lahan oo qiimo lacag kama aan samayn jirin wixii ilaahay kaa siin jiran meelka allah kaa siiyaan leenahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka tacsida ahaa waxaana leenahay inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahi subxaana watacaala ha walaasheen ha u naxariisto rabbi subxaana watacaala hana kitaabkeeda midigtaa ka siiyo iyada iyo annaga iyo intii muslimanaba ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uu khaatumada nagu sugo oo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in uusan si xuli noo dilin oo aan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa aynu ku dhimaan khaatimo wanaagsan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu